بسم الله الرحمن الرحيم ولا سبسكرايب له يوتيوب كان عدبو كل واحد وليبو سبورتس او باهنتاين فضلا horta booqo سبسكرايب noo saar dadka سبسكرايب noo saar waxaan ku codsanaa kabalalka inay furtaan ku soo dhawaada faaqadaada ciyaaraha maanta oo taariikhda ay ku beegan tahay 29ka bisha 9aad 2019 maxaa ciyaaraha ku cusub maxaad ugu baahan tahay kulamada waaweyn maxaa siro kubadda cagta aad ka dhex rabtaa ku soo dhawaad walaal safka ay ku gali karaan kooxaha Man United iyo Arsenal kulanka habeen dambe ka dhici doona garoonka Old Trafford oo la soo saaray koox ka dhashay heerka saddexaad ee Ingiriiska oo ku faantay in ay ka fiican tahay naadiga Man United iyadoo adeegsanaysa barteeda Twitter-ka macallin Diego Simeone oo maqlay aflagaadadii uu Sergio Ramos u geystay calanwadihii kulankii xalay ee Madrid derby kabtanka Los Blancos oo la ganaaxi karo Pep Guardiola oo sheegay war aysan jeclaysan taageerayaasha kooxda Man City Aubameyang oo go'aamiyay mustaqbalkiisa kooxda Arsenal ka hor kulanka Man United Frank Lampard oo soo afjaray murankii ka taagnaa tuurista rigorooyinka kooxda Chelsea Mahrez oo ka hadlay loolanka u dhaxeeya kooxda kubadda cagta Liverpool iyo kooxda Man City kadib guushii ay ka gaareen naadiga Everton wuxuu ka yiri Zidane kulankii derby ay xalay barbaraha la galeen kooxda Atletico Madrid Barcelona oo soo saartay warbixin ku saabsan dhaawaca Ousmane Dembele kooxda Atletico Madrid iyo Real Madrid oo dhibcaha ku qaybsaday Madrid garoonka Madrid